soo dhawaada insha allah soo uruura ismaqal soo ma jiro insha allah soo dhawaada soo dhawaada hana lasii firfirdhiyo si fiican soo la isma maqlo صح صح thank you saaxib thank you waan yar farsamaynayaa ha isuginaya sii bahalka sii warfiya meelaha ku tuura waxyar baan rabaa inaan isla wadaagno isla sheer garayno okay iska bilaabanaynaa xogaa lambarada hore inoo badiya inoo lambarada kor wada mahadsantihiin 2 minute waan iska bilaabanaynaa gunta aamusta galabtoo kale gobtu runtay sheegtaa gunta caytantee gobtu way dul xaadisaa soo maaha gunta aamusta galabtoo kale gobtu xal bay raadisaa waa mahadsantihiin aad baan idin salaamayaa kor baa u socotaan thank you allah idin sharfo dhanka sheerta waa waxaan u malaynayaa iguma jirin talagalkayga soomaali iyo qabyaaladeeda iyo cudurkooda unbaa igu soo celiyay talagalkayga marna ma ahayn intaan life soo galo aan kusoo laabto I think 19kii baa igu dambeysay haddana has noqotee way ka fursan weyda yacni waxyaabaha soomaalidu ay ku dhaqmayaane ma u malaynayo meelaha la dhaho youtube-ka oo kale iyo maanta waxa ka socda waa meesha ugu badan munaafaqada iyo beenta laga ururiyo beenta iyo munaafaqada laga sameynayo waxaa igu daran waxaa weeyaan nin weyn oo ummadaha ku xidhan yihiin kumaan kum ayaa wuxuu la soo fadhiisanaya waa hordhac barnaamijka ma gelin ayaa wuxuu la soo fadhiisanayaa lacag baa la isiiyey waan diiday lacag baa la igu deeqay cabdisamed walaal cabdisalaan waan ku salaamaya aad baan ku salaamayaa khaliil adna waan ku salaamayaa lacag baan diiday oo la isiinaya inaadeero adigii baa lacag been ku samaynaya waxaan laba erey baan leeyahay raggaa waaweyn ee waxaa ku dhaqmaya ee youtuberada ah inaan waxa magacaabo ma rabo waa dad ilmahaaga aad riyaal uu been kaa soo galay ama $1 oo been kaa soo galay xaaraan baad ilmahaaga ku korinaysaa waayo adigii oo been lacag kaga raadinaya youtube adigii oo been iyo isku dir iyo munaafaqad kaga raadinaya youtube lacag haw adii dhahdaa lacag intii la ii ballan qaaday oo la yidhi waxaa iyo dad samee ayaan diiday munaafaqad ka weyn ma jiro dadka youtuberada jooga wallaahi rag waaweyn oo waxaan ku idhaahday ninba inaa lillahi wa inaa ilaihi raajicuun waxaan insha allah ka hadlayaa barnaamijkeena soo dhawaada intaas waan yaro inala yar gashay soo dhawaada horta dhammaantiin waxaan idin ka codsanaya inaad qaybisaan barnaamijkan inta haddaan kasoo gudbo waxaan ka hadlayaa wiil habeen hore lagu dilay habeen bay tahay habeennimadii lasoo dhaafay lagu dilay Nairobi Kenya wiilka waan aqaanay Somali React meel la dhaho ayaan ku bartay actor yacni dadka dhiirigelin jiray buu ahaa last adigu 5 years wiilkan waan aqaanay waan arki jiray marar badan meel waan isugu nimaadnay social media hase ahaatee qof fiican buu ahaa wiilka wax xumaan oo saas ma ku arag qof iska furfuran buu ahaa anu laakiin wax kasta waan ogahay anu wax aan qarin ma jiro anigu ama igu nac ama igu diid
xaqiiqada jirta waan sheegayaa blog baa tahay haddaad hooyo caydo ma isii daawan karta ani haddaad hooyo caydo blogtaad automatic baad u qaadan marka waxaa weeyaan yarkan lagu dilay Nairobi aad baan horta uga xumahay waayo qof islaama weeyaan qof Soomaaliya weeyaan qof walaalkeena weeyaan ama mistake ha sameeyo ama ha laga qaldanaado ama isagu ha qaldanaado marna dilitaankiisaas waa waxaan ku faraxsanahay maaha waxaan ka xunnahay Allah ha u boogadhayo su'aalaha laakiin isweydiin mudan su'aalaha isweydiinta mudan waxaa weeyaan wiilka shalay video soo duubay waxyar baan rabaa inaan isla fiirin ilmaadeen rayaalow yacnihi waxyar baan rabaa inaan isla fiirino raalli ahaada waxaan rabaa wax kasta caddaan bay caddaan inaan u wadaagno one second again thank you okay waxaan rabaa inaan wax yar isla wadaagno oo wiilka idin tuso waxyaabaha uu sameynayo waxaan arrintan maxaa ka jira sida ay tahay ay wax u jiraan inaan isla aragno I want taabisan anigu u baahnahay yes waan helay okay wiilka marka uu soo galay shalay uu YouTube-kiisa meeshiisa uu ka hadlayay aad buu hanjabayay iyo ishayeen waana isweydiino inaan social media wixii la inoola yimaado ee la soo farsameeyo oo hoogaya bacay aan la oranno ma ah oo naamino waa inaan isweydiino waxaan uu ninkani sheegay maxaa ka jira maxaa suuragal ah midis waxaan ka codsanayaa hadda awoodaan inaad sii faafisaan insha Allah si uu qof walba oo arrinta midmadow iyo wax kaga jiro aynu isula weydiino su'aalaha Janiskiina waa idin siin doonaa insha Allah okay telefonka iga dimi gaaray marka waxa weeyaan wiilka subaxii markii uu YouTube-kiisa soo gelinayay qaladaadkiisa iyo waxyaabaha uu sameynayay inaan isla aragnaan rabnaa wiilka walaalkeena kadib dilitaankiisa ayaan imanaynaa kadib yarkan Axmed Rashiid oo ku rafanaya qof walba uu soo qaadanaya hadalkiisa iyo wuxuu u yahay Axmed Rashiid ayaan dul istaagaynaa ku mahadsanyihiin dadka badan ee maanta waxyaabaha badan ila soo wadaagayay waxa Nairobi ka jiray ila soo wadaagayay yani inaan waxa soo dhan dul tagno yarkan walaalkeen ah subaxii marka uu soo galay YouTube-ka uu soo gelinayay uu hanjabayay uu aflagaadeynayay hooyo caayayay marna ani amaan kuma laha nin hooyo caaya agtayda nin hooyo caayay marna amaan ma kulaha agtayda aad buu qaldanaa inuu hooyo caado inuu aflagaadeeyo annagu labada nin ay sayay ee Daahir Cali Sow iyo Sharma Boy agartooda waan galnay arintooda waan ka hadlay meel walba oo social media aban soo galiyay iyadoo rating iyadoo qoraal iyadoo oo hadalaba si odaynimaan uga hadlay Daahir Cali Sow waan canaantay wiilka inuu ka qaldan yahay oo miskiinka yar iska daayay ee noloshiisa iska wata waan sheegay adigu walaasha ku baabayo haddii aadan balaaye abuur ahayn oodan dhibaato adigu cagahaaga ku doonanin maxaa subaxii annagu waan joognay youtuberada dhan way joogeen way hadleen ninkan waan karbaashaynay Daahira qaladkiisa waan sheegaynay inaad hanjabto dilitaan ku hanjabto ima waad nin dhahdo aan aflagaadaysa hooyo iyo dad aad caydo maxaa su'aalaha isweydiinta mudan maxaa kugu kalifay weeyaan maxaad annaga qabiil iyo tolo ayay ogaadeen baa ay dilay sideed nin ogaadeen ay dilay ana isdilay anu waxaan u nacbahay qof beenaala ah oo intuu dhibaatada haddii ani intuu gurigayga igu soo doonto oo isku dayo inuu dhibaato igu sameeyo aan iska celiyo qofka isaga isdilay hadda yani yaan tusaale usoo qaata Faysal Cabdullaahi waan dhirbaaxan ku dhuftay indhaha mariyay ama candhuuf baan ku tufayba dhaqan xumaha noqotee mindi uu dhuunta iga geliyay ma isaga ninkaas anaad idab darrada ku sameeyay oo la doontay mise isaga igu sameeyay waa inaad idinku ii jawaabtaan وإن أيضا شيكا رقيسه إيو داهر على سوبا كان داهر على سوبا داد وحبا أديك سنية داهر على سوانين رقبا إسهيان إساقين وذا هاي سنة وإنو عنانيني رقبا إن إسئرينيين وإنو هيرينيني لكن حقيقة جرتاني دي شيكا أنا قو واد يقول نعي كرتا
run laakiin been ma igu jeclaan kartid been intaan kuu sheego igu sacabtimi maysid wiilkan marka oo waxaa samaynayo uu weliba isoo qoslaya uu leeyahay hooyada anaa waxaa ku sameeya marka uu ninkan leeyahay anaa meeshan iigu imow awowgay baa sidaa ahaa maxaa yacni hadalladaas miyayna qalad ahayn haddii aad awood iyo dhibaato sheeganayso oo aad awood iyo xoog aad sheeganayso walaalow maxaad ninkan inooga qaban weyday daahir cali soo hayey maxaad adigu isu difaaci weyday hayey su'aalaha isweydiinta mudan waa inaan wax aan meel idinka tuso okay intaas marka aan ka nimaadno aad subaxii aad hadallada aad samaynaysa haya walaal waan idin soo qaban aan dhammaysta hadalkayga barnaamijka sii faafiya insha allah haddii subaxii markaad hanjabaysay boqolaal qof baa ka soo hadlay daahir oo lahaa walaalow yacni qofka dhibaatada lama abuuro laakiin xal baa la raadiyaa walaal daahira waad qaldan tahay oo wiilkan yar iska daa waxaad ku samayn kartaa waad ku samaysay iska daa war hadduu adigana axmed rashiid uu baaswood iyo ciwaan iyo wax uu kaa qaaday walaal caddayntii baan u baahannahay wixii run ahee xaqiiqa ah baan u baahannahay annagaa markaa axmed rashiid kabta uu gashada aan gelina laakiin haddii aadi ganacsata ku soo adeegsanayso dadkii soomaaliya iyo puntland iyo meel walba soo halliga ay ku soo adeegsanayaan ood rabto inaad khalkhalka nairobi aad khalkhal geliso nabadgelyada nairobi inaad khalkhal geliso saaxiib kenyaatigu bartaa ninka axmed rashiid ka tooganayay kuwii gaangiiska ahaaba halkaa ka tooganayay haddii aad adiga oo khalkhal gelinaya oo dhibaato samaynaya oo suuqa youtubeyada soo gelinaya anaa ku dilaya anaa waxaa kugu samaynaya anaa aabbahaya tan teliyey xildhibaan hebel anaa xuquuq walaal aad leedahay dee khalkhal baad gelinaysaa walaal shaku baaba dhibaatada laba mid weeyaan marka adigu kow waa inaad taa aaminto horta marka hore waxba nin dibad jooga oo youtube lacag kugu raadsanaya ha u beer lahawsanin nin riyaal kugu raadsanaya youtube ku jira oo raba inuu lacag kugu helo leh ala talaay Soomaaliyeey nin gobaan ahaan jiray binta way xasay sameey jirtay hadal intuu soo qaadsado kugu beer lahawsanaya waxa been ku sheegin nin noloshiisa wataadahay inaad gabadh qabto waan ognahay waxa adigu tahay hadii gabadh ku diraysana saaxib rag inay ku dirta ma ahayn ku dilayay rag aad iska celin kartaa inay ku dirtay ahay waan ogahay inaad gabadh qabto waan ogahay in ilmaadiyiin gabadh aad qabtiyo sharma booy ma jecel inaan gabdhaha ka hadlo in arrintu gabadh soo gashay ma jecel laakiin anu runtaan sheegaya shaku baaba dhibaatada waxa u geysanaya ee meesha gelinaya sheegaya anu daahir cali soo ilmaadir ma tihiin sharma booy ilmaadir ma tihiin Soomaalinimo haddaad ugu heelinaysa kana Soomaalinimo inaad wax ugu sheegtay ahay inaad odaynimo wax ugu sheegtay ahay oo dhahda war daahir oo oday baa tahay nin saasaa tahay waxaan jooji laakiin inaad hanjabto dhahda kanaan ahay waxanaan ahay dhalinyar kale aflagaadiso dhahda hunguriba waxa u samaynayaan konton baa loo soo diray walaalow adigu waa qaldanay totally videoga aad duubtay wuu qaldanaa waana ka ku dilay waxa kuu geeyeyna naagta aad qabtay gabadha aad qabtay inay kaa dambayso weeyaan laakiin adigu ku amarta ma ahayn in adigu waxa sameeyo ku dhahda ma ahayn مروا القبتها وقبر شرف لقبرها مريان أم حساب أنا إلا ده يوتيوب كو استعماشه لكن أذيك ولا إني قبر لي أي كو استعماشه أي كو درته أي كو هذا الشر معنا الماديرنا هاي داهر على سوء هنشب أفلقات دي أنا ورنت صح واحد كست أنا وعلى الصعدة أنا آمس نادا رون لكن هدان هذا وحما قريب آمس نادا أيارون هدان هذا حقيقة تلتا ويلكا وحقول انتي السجا يعني أيان إدين شيء دبتها rag dhar qado ciidana isaga doontay wiilku marka dagaalkiisa aanu nimaadno fiidiyoogii iyo wixii ku kalifay iyo dhibaatada meesha ka timid iyo waxa soo dhan waan idin soo sheegay gabadh baa meesha ku jirta inuu shaku baaba dhibaatadan sameeyo arrin gabdheed iyo ka waxaan sameeyo iyo amar lagu amray ahayd kadib inuu dagaalkani dhaco oo wiilka sidan u dhaco isaga doontay hadaladiisan idin sheegaya marka walaalkan waa kan waxay horta aan isla dhageysano one second dhageysta dhageyso
No, I don't want this. Kan ma rabo. horta sheekadan haya sheekadan idin haya waxa horta aan iskiin baro aniga waxaa la yidhahaa maxamed aamin yaxya buule cid aan ka baqaayana maanta ma lahan waxaan ku noolahay aan joogaa wadankii ay xudunteeda ku duugan tahay Kenya aniga bis ma ahe macla awowgii ay xuduntiisa ku duugan tahay Kenya waxaana aaminsanahay inay cid wax iga qaadi karto aysan jirin. Okay, aan halkaa yar ka falcelina marka aan isla socono marka wiilkani marka uu leeyahay cid wax iga qaadi kartaa ma jirto Kenyan deganahay waa intuna dagaalkan dhicin marka yuu la dagaalamaya marka wiilku su'aash ina isweydiino mudan marka tan weeyaan haddii ayna wax kale jirin oo isagu una wax ka soo dhex guuxaynin una isagu dhibaato abuurin Shakubaba maxaa marka kalifa inuu sidan u sii hadlo fiiri yani haddii maxaa la yidhi xaaje aan sidii daba riyaad u faynayn ma fayoobaato xaaje aan sidii daba riyaad u faynayn ma fayoobaato marka wiilka markuu sidan u hadlaya hadduuna dhibaato ayna jirin una isagu dad dagaal kula jirin ama go'aan una soo gaarin inuu dagaalamo maxaa hadalkan keenaya aan sii wadan haddii aan wadan kale maanta ku noolaan lahaa haa cabsi way galleed laakiin meeshaan aan ku noolahay cid aan kaga cabsoonahay ma lahan ama cid iga xigta ma lahan ka madaxweynaha baarlamaan ku jira hataa waxaan aaminsanahay inaan anigu udari kaga ahay so wax aan la gabanayn ma lahan xaqeeq jirta youtube-da dhanna waxaan u sheegaa mataqaanaa inay wada yihiin beeq fuliyaal awragi dhihi jira reaction aan bixinaayo xaqiiqdan ka hadalnaayo la dhihi jir aawi cid hadluusa ma lahan cid xaqiiqda dhabkaadus ma lahan haddii isa hadalka kaamil oo saxda haynina waxay haayaan wax maqal ku soo gaaray balse xaqiiqda dhabta anigoo hay afkaa leeyahay waa aamusnaa laakiin intaan ka badan waa aamusi waay waxaan u aamusi waay wax kale maahan ila calasow ayaa wuxuu heer gaaray inuu hata dumarkii kusoo dhigo raggii baa laisku ogaaba sharmaaka wax aa ka qaadaysid ma lahan waxa isticmaashana waa taqaanaa hakara ahay hooyadaa hakar u tahay eeda ku dhashay wasi miyaa hakar u tahay intaana wax kusoo baratay haye aawe cunaabi aawe waxyaaba fara badan way kugu soo foodayaan hadda arrinta kuu sheegayay okay wuxuu yidhi waxyaaba fara badanna way kugu soo foodhayaan way kugu soo socdaan ilma adeerayaalow lama gardarnaado ilma adeerayaalow munaafaqad iyo cudur iyo qabiil lama hor ordo qofku hadduu dhintay uu qaldan yahay wuu qaldanaa baa la dhahaa wiilkani wuu qaldanaa muxuu yidhi waxyaaba badan baa kugu soo foodli okay maxaa igu soo foodla marka isagu dhibaato ma abuurin marka miya sorry waxa kugu dhacay walaal Shakubaba ma jecli ina hadalkaygan aad u aragto kale way qaadanayaan meel kasta i geynayaan ina hadalkaygan aad u aragto inaan adiga ku attack garaynayo laakiin waa qaldan tahay waa qaldanayd xalay dagaalka markaad samayseen adaa sameeyay waad qaldanayd marka wuxuu leeyahay waxyaaba kugu soo foodli haye marka wax walba isweydiyo waxa soo foodla muxuu ahaa inuu dhib sameeyay uu dadilo uu datooriyeeyo haye rag dhar qadaho ciidan isku doontay marka suga marka waan idin soo wadaa marka runta xaqiiqda jirto waxaa waaye kaadiya maalmaha noo soo socoto xaqiiqda dhabta ah oo caddeemo wadato ayaa idiin soo bandhigi doonaa siiba aniga ayaan waxaa idiin soo bandhigi doonaa waxaan afka ka hadlaynin oo gadaal iyo hore baan iska soo dhigi doono xaqiiqda jirta iyo sheekada say ka bilaabatay say u bilaabatay ilaa iyo siday ku dhammaatay iyo jaanalka siduu ugu gacan galay wax weliba oona qarsoonida ku jirin anaa idiin soo bandhigi doono caddeemo sax ah hase ahaato waxaan arkayay nacimo jokare oynayso gees qof lagaga haysto dhalinyaro waxaan arkayay inay isbahaysteen funaanad lacag $50 in loo diray funaanadaal oo magac iyo sawir qiimo lahayn lagu buufiyey in loo wada xiraa laleeyahay meelaha ay istaaga dhalinyartaasi wax aan ku haysta ma lahan waxaa dareemi karaa inay xaalado kulul iska jiraan xamar ay marmarka iska mtaqaana iska dhacda xaalado kulul in lagu jiro oo la raadiyo oo xoogaa yaroo lacag ah ilaa alisoona uu lacag diyaarlay okay hadda wuxuu galay ninkii ay haysteen ma gelin dhalinyar buu galay dhalinyar kale ayuu galay hadda uu aflagaadeynaya wiilkani uu ka gudbay ninkii iyo wixiiba
dhalinyar buu baahi ku sheegayaa hebla nin uu aflagaadiyaan leeyahay ninkaas waxaan ku sameeyay ninka ragga ah marka aad la doodayso waa inaad wax yacni aan aflagaadaha inaad kula doodo oo dhahda warxiniye ma leedahay aqoon ma leedahay karti ma leedahay waxaas ceebahaas aad leedahay laakiin inaad hooyadii iyo adigu waxaas aad tahay iyo no waxaas wax rag ku hadla maaha marka totally anigu wiilka waxaa in tusayaa waxyaabahan inuu isagu soo bilaabay dhibaatada inuu isagu soo bilaabay waa laga yaabaa inuu dulmina yahay laakiin dhibaatadiis intaynu inagu ka aragna weeyaan leeyahay in oo mataqaana oo caanimi wax walba ku raadiyo iyo mataqaana wuxuu sameeyay inuu iskiga dhigo dhalinyartaasi in shaah la siiyay oo funaanada xoog looga xirana wajiyadooda ku qoran tahay aniga as an actor Soomaaliyeed ahaan ma akhristo qofka hadalkiisa waa dhigeystaa laakiin muhiimadda dhabta aan fiiri waa labada indho qofka ficilku uu bixinayo indhihiisa ka akhristaa so raggan inay rag lacag soo qaateen yihiin waa ujeedaa rag oo maanta inay ka soo go'do inay si jireen maanta adig kan maanta ku taageerayo oo ku soo istaagayo waa mid dhala ah qof laakiin xaqiiqda dhabta ah okay pointigu ku dhintay marka waa kaaninku pointigu ku dhintay ninku waxa weeyaan ninka waxaad moodaysaan in dad ay dad u hilinayaan qof ana xor qofka taageeraysa qof walba anu waxaan aqaanaa shay ah inuu qofku maskaxdiisa yani opinionkiisa inuu xor yahay يعني قفك هدونا مسكح ليس أنا حر نقني يا أو opinion كيس أنا free نقني تيجي وحنا قلنا يسألني مركز إسعبرين إن نقطة ماشي كل أنت وحاويان وحا كتاجرسن ووحاس أنتوا أفلقات دي مركا حدنا نويلكو وحوي مركو دجالك السمينة يي استقع دونتي من دبادو التابع يجري سداسي وقبتين رج درقدو دونتو دمعينو دبكو سماي واسان أنا وركو مقلي رجاس درقد كا سجني ويسكت شبيه وين قراعين قاعد بالله يوقعته إيو وأوجادين إيو رج عيدا ويا نك رجن دلي نك رجن دلي رج عيدا أو عيدا أو درقد يسكت دونتي وليبنا إياه أو إسقى أو وح وسميني اللي أجيها بهذا إسكو سيد دونت إسقى ودمعينه دبعته يكدي من ولا الدليل عدايما يدي شيء كيا قفل الدليل أو سيدنا الله قالي حدينا عيدا أين يصيروا جريم ده صح نختار بهذه لها من يوتيوب بعد أختاركم مركب من جوري صار أختارها من يوتيوب قاعد أختارها بلاس تريار حيتام صار مركب إلما على الرجال وحد جرتان شيء كذا يعني ننكرهن فرصة يسن يا واحد أبتاع حال متبان كلها xaaskaaga waa in aad isu hoggaansantaan gabadhaadu inay dad dhibaatay wax ku horseeda ma aha inay markaa dhibaato samaynayso ku dejiso weeyaan ay ku dhahdo sidaas ma aha xaalku ka daa ka joog xal raadi soomaalinimo wax ku dhammee walaaltinimo wax ku dhammee laakiin inay ku dhahdo hooy in adeerkii weeyaan soo dil ama waxa u samee no kala qabiil baan meesha soo gelisay ogaadeen baa tiri walaal isku baaba ogaadeen baa idilay baa tiri I don't believe that. In taanin ee sheegaysa oo ogaadeen ay dulmi isku raacayaan oo adiga ay ku dilayaan ma iga dhaadhacaysa walaalo weligeena ma aaminayo afka hadal iyo gacan ka hadal walaal arafa thank you last night baan soo galay anagu haddii horta beesh ogaadeen aan af ma ka hadalaa anagu gacan baan ka hadalaa idin sheegay ama doqomaatiina dhaan fariidaatiin af ma ka hadalaa gacan bas aan ka hadalaa dadka meelaha ka boodbo teeboga waan ku waraa waan ku dilaa no dabeecadda meelina anagu aan kala baxna bas aan kala dhamaana ama idil ama aan ku dilo laakiin in googaradaha dumarka iyo aflagaadeen iyo waxa in lagu socdo dhaqanka naga ma aha ta kale meesha taala Ahmed Rashid baa dad sa ugu wareegaysanayaan oo YouTube lacag kaga sameynayaan Ahmed Rashid ما أملاينا يو إن أباهيها قف دفاعا إن أباهيها قف قاية إن أباهيها قف ميلها تشيدا وح الله يالا وح أباهيها الدعاء يهبار من المتشرو هو يوين باكو الساحل الصومالية قبل الصوماليات باكو الساحل عيال الصوماليات باكو الساحل قبل وقت تجي يعني جانجيس بلايدي يتشينا جروب كليني ورياها ما مو يقدو كان كمين فرنشري والله وحال إيش إن سكول كأرديد أين آدي تشيرين
oo maamo ooysa igu tiri ninkaas markuu iskuulka ay gabadhaydu ka timaado xaafad bay tegi jirtay xaafadaasaan ugu tegi jiray markaan waqti helo marka adiga oo wadan dalkeenii soo rogay oo ummadii soo haligay oo dalkeenii futagambiyey haddaad rabta inaad Nairobi aad futa rogto walaalow dhib baa ku qabsan qalad baanad samayn qaxoonti baan ka nahay way jiraan dad Soomaaliyeed degan oo degan ahaan u leh mar raba inaan ku dhaho qaxoonti baad adigu ka tahay kuwa dhibaatada ka wada ee maanta meelaha ka qaylin Nairobi qaxoonti bay ka yihiin ka samee magaalooyinka aad joogtaan ee Yurub ah ka sameeya dhibaatada Nairobi rabtaan inaad ka sameysaan dhibaatada ay rabtaan in ay Nairobi ka sameeyaan ka samee adigu idinkuna ka sameeya Yurub waxba YouTube iyo meelaha ka qaylqaylina pointiga kale in rabeenaan ka hadlo waxa weeyaan Axmed Rashid markii hore ma ka qayb horta ma aha ciidanka ma aha ka hawlgala Nairobi gudaheeda ma aha waa loo yeeraa markii hore markay xaaladu soo noqotay baa loo yeeray talaabo qaaday 5 jeer buu ilmaha u digaa u dhaha hooyada u geeya ilmahaaga qabso 5 jeer markuu ilmaha uu meelaha gaangiiska iyo dadka lagu dhiciyo waxa ku arko uu intaba u geeyo marlixaad kama weydiiyo baf buu ka siinay uu dilay abnaawna waasidi waqtigana waasidi hadda markii ay soo laba noqdeen markii magaciisi yar baxay oo artay Mareykan hay'adda xuquuqul islaamka ayaa dacwad ku soo ooyday ku weeyay caalamka waxa dhan isku sharciga waa gaangiiska magaaladan aan hadda anigu degana gaangiiska ciidanku halka maray hadduu arko automatic buu ula dhaca xabad qofka ay dhahay waa been gaangiis waa shoot marka la arko boolisku markuu arko gaangiis waa shoot uu shooda xabad ku rida dad kale inuu dadka dila ma aha inuu dadka xabadeeyo ma aha gaangiis hadaa tahay wadankan saan uga shaqeeyo gaangiisku uga shaqeeyo Yurub ama Mareykan ama aad joogto umbu Nairobi iyo Kenya uga shaqeeya ma aha in adeerkay weeyaan iyo isbaara halkan u taale iyo eedaday weeyaan iyo qabiilka naga degi iyo waxa ma hasaxay Nairobi sida Mareykanka gaangiiskooda loola dhaqmo ayuu Axmed Rashid ula dhaqmaa barta uu ku arkana uu ku toogtaa walibana baskooradu ku toogta tiisa ma ahe waa loo soo dhiiba aan kuugu daray intaas qof uu dulmi ku dila haddaad dhahdaan shaqsigaas buu dulmi ku dilayna ana xiniyahayga mindi ku jaray aniga kama sameeyo Facebook lacag been ma idin sheegayo faamoosnimo ma rabo inay dad badan i daawadaan oo doonayo ma rabo reason iyo sabab iyo xaqiiqo ma soo galaa ma idii kartin lacag baad ku sameynaysaa faamoosnimo haddaan raadinayo ma ka maqnaadeen meesha waan dhex joogi lahaa hal life markaan soo galo dantayda intaan ka gaaraan iska xidha Facebook dhanba hawlahaygan qabsada marka ilmaade reyaal waxaan idin sheegayaa Axmed Rashid duco iyo habaar iyo wax uu u baahan yahay ma jiro kiina aad hadaan warheer waxay gaari jirtay isli haddii maanta aad ganacsi yar furato ganacsigaas mid la mid oo cid kala intuu habeenkii ku soo diray gaangiiska lagu dilayo wixii bay rabaan inay ka dhex sameeyaan Nairobi wixii bay rabaan musuqi iyo balaayada Soomaaliya lagu soo hirgay inay ka dhex sameeyaan Axmed Rashid magaciisa waad ku sasaysaan idinkoo hurda idinkoo khoorinayo hurda waad ku dhex sasaysaan magaciisa taasaan idin sheegaya walaal qof walba oo reer Nairobi ah war iska daaya adiga oo wadankaaga soo dhibaateeyay oo soo carray oo qaxoonti ah kuwii Kenyaatiga ah ee magaalada gurigooda intuu ugu galay ku dhex tooganay qofka ay dhahay waa been malaayiin Soomaali ayaa Nairobi joogta haddayna kumanaan kun haddayna malaayiin gaarinin ayaa jooga Kenya ogaadeen baa kan sameeyay ogaadeen baa kugu haya anu runtan ku sheegaa ama igu nacmada ogaadeen baa kugu haya qiimaha aad Kenya ku leedahay wadan kale oo ku leedahay oo Soomaali ma jiro oo Afrika ma jiro ganacsigaagu soo rabo ugu dhaqma noloshaadu say tahay ku dhaqma intaad ku soo disho magaaladaada iyo wadankaaga iyo gurigaaga intaad cid ku soo disho oo xamar ku soo disho oo ku soo qarxiso oo ku soo dhibaatayso yaa Nairobi timaada ogaadeen baa kugu haya
isagaa kugu difaaca isagaa magaciisa ku joogtaa markaasaad qabyaalad iyo haddana intaa in la ego abaala soomaalida kale laguma hayo I know nabadda Nairobi inay dhibayso inay Nairobi meel noqoto qarax iyo balaayo dhibaato ay ka dhacdo dadka waxaa samaynaya waayo nin gurigiisa soo gubay maxaa la nin gurigiisa ololaya guri kale ma ka naxo oo gubanaya nin gurigiisa gubanayo guri kale gubanaya ma ka naxo marka intaas waa intaan yani aan information ka rabay inaan ka siiyo kuwa kale ee qabiilka iyo balaayada iyo waxaas ugu go'leynayona walaalo qabiil hadii faa'iido leeyahay reerkiinu wuxuu ku qabtay dib isugu sheego ana idin sheegaya reerkanaga hadda aniga aan ka dhashay qof wax nasab oo dhihi kara waxaasan ku qabtay miyuu jira Soomaalina waxaad igu qabateen walaaltinimo waxaad igu qabatay saaxiibtinimo waxaad igu qabatay laakiin qof yiri warniyo nin ogaadeena tahay bal hoo intan yare waxaan oo intan aan ku siinaya qof yiri ma jira qof warniyo nin ogaadeena tahay waa lugaysay bal gaarigan yar hoo oo shaqadii iyo ku aado yiri mu jira no qabiil intaasa example kugu filan laakiin aanu runtaan jeclahay hadduu maanta nin wax ii qabto waan ogahay ninkii reernimo ii nacab reernimaan u nicay ma ka gabanayo ninkii reernimo ii nacab reernimaan isagana u nicay ninkii walaaltinimo ii jecel walaaltinimaan u jeclaan ninkii soomaalinimo igu wadan soomaalinimaan ku wadan reerkaagaan nacbahay adaan reernimo kuu nacbahay ee reerkayga jecel qofna laga yeeli maayo waan idin soo qaban insha allah dhalinyar dhowraho yaan soo qaba ilahaa aan idin furay ukaadi kaamerada waan idin furay soo infeed gareeya qofka aan soo qabanayo bas ha soo infeed gareeyo ha soo wada gelina meesha waan jaaniskinina waan isiin laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan walaalsha ku baabaa wuu qaldanaa ana idin sheegaya allah ku caafiyo dhibaatada adaa abuurayay adaa lahaa yacni intaan soo dagaalamay baan soo tegay kadib ay dhexda igu qabteen no ani oohintaadii iyo dhibaatadii kugu dhacday waxa inaan ka hadla ma rabo laakiin dadku dad ciyaal ama aha dad maskaxda dad fikirayaan nahay dad aqli la baan nahay dad bilaa maskax ma nihin qofka kaamerada soo gala waan soo qabanaya wiimasaan kuu tuuri haddii aad kaamerada intaan aad soo gasho aad soo qabsan weyda ama aad okay aad saa ku bax marka kaamerada ha soo gelina haddaan soo qabsanaynin mise xaggan kale aan ka soo qabtaaba dhalinyar anas iyo rag baa ilaha soo qabo okay kaamerada soo gal walaal ayaalo kaamerada soo taabo adaa bal waxa meesha ka jira noo sheegi ayaalo kaamerada soo taabo meel soo infeed galeen infeed soo dhig بليز هدي أنا ربين لو سوا قبته كاميرا يسكدها سوق جن سمعنا أنا روك سلام يا ملاك سلام لو قتين أدنكو سلام يا لو هذا سوق شو لكن ودي يقول رأيتي صاحي ودي يقول رأيتي خد كاغنا إسكهبة يونا نقولنا خد كاغ وخد إستكتاغ يكله kusoo bood soo qabso waxa weeyaan niyow Soomaalida qabiilkan iyo balaayadan ay u ordayso dhibaatada ugu badan waa isaga qabiilka iyo waxaan u ordayso weeyaan waxyaabaha ugu badan ee xanuunkan wahay kii la taabtaa qabiil baa kan igu sameeyay qabiil baa waxaan igu sameeyay waa waxa ugu xun ee dadkeena hoos u rida rana waxa soo qabsan laadiin walaal anagu ma garanayna waxaad ka sheekaynayso dad anagu maana reer ku soo qaadanin meesha oo aan dhihin dadkaas wax ka dhaxayaan waxa adiga ku gaarka aan weeyaan waxaasi wa alaykum asalaam walaal waan ku soo qaban insha Allah adiguna ah iga tig war soo dhawaayaan la wada waad soo qabsan weeyday لا ما يفكر مين مقشورة
si fiican baan ku maqlaa walaal khadkaagu laakiin istaagtaagaya عفوا كورة ساتها مجعنتها ولا هبيمنس aad baan u fiicanahay walaal galab habeenba horta noota habeen lamida bal ku soco barnaamij ولا العيد أدم كل سلام هيا مدرس ما أرج تارك دمبه كنا في مرجين هي أنا أصلا كان كلي نقنين وبرمش أنا هرب قالوا كدواني وكل السعودي ما هن دمبه رمها سوشيال ميديا كالسعودة ويبقى برده أم يوتيوب كالسعودة وداوني khadkaagu yar gaaban yahay walaal samiicadda soo yar dhaweysa أوكي هذا من قليسة هذا كورة si fiican haddaan ku maqlaa ha كان لهان يوتيوب كواحد كالسعودة أم يوتيوب برده أم سوشيال ميديا هو أنا سعني waxba kuma nadarsanin maxaa yeelay waaqaca jira iyo Soomaalida waxay tahay baan ka dheeraysanahay wax share iyo wax comment iyo wax faalla iyo wax like iyo wax hadal kuma nadarsan maxaa yeelay dadka Soomaalida ka dheeraysanahay waxay tahay waxa weeye 40 sano ummad iyo 30 sano ummad waxa weeye rogmatay gurigoodii rogtay ceelashoodii rogay magaalooyinkoodii rogay dhulkoodii rogay oo dunida kale rogay hadda rogay weey marka aniga wax weyn oo hadda macnaha ma sameynayso waxaan dhacay oo dhan ama wiilal ama hablo ama fanaaniin ama youtubero laakiin waxaan ka hadlayaa arrinta macnaha ay sameynaysa hadda rabo inaan adiga kaaga faa'iidaysto waxa weeye walaal barnaamijka Kenya iyo Nairobi iyo security-ga iyo nabadgelyada ay kala dambeynta dalka Kenya iyo sargaalka Axmed Rashiid Kenya waa wadan jiritaan leh oo nabadgelyo taalo oo 30 sano ummad aan dal lahayn oo isrugmato iscunaysa hayay marti geliyay wax ku bartay dhaqaale u sameeyay caasimada Nairobi guryahooda kala ka dhigay Muqdisho iyo Gaarisa iyo Boosaaso iyo Hargeysa kala ka dhigay Gaalkacyo iyo Beledweyne kala ka dhigay abaal waxa looga dhigay qarax dil dhac boob inay marka Kenya ilaashato nabadgelyadeeda muwaadiniinta Kenya naftooda maalkooda la ilaaliyo dowladda Kenya xal baa ka saaran Axmed Rashiid waa sargaal ka tirsan ciidamada Kenya hawlgalladu fuliyo dowladda og tahay nabad sugidda og tahay booliska og yahay militariga og yahay constitution ah sharci ah in la weeraro waxaan arkaa waa wax ka baxsan Kenya ama Soomaaliya ha noqoto ama Ruushku ha noqdo ama Balaayka ha noqoto wax Kenya ka baxsan dadku meel baraarugsan taas aan macna ay sameynaysa shacabka Soomaaliyeed qaxootiga ah muwaadiniinta Kenya in la ilaaliyo noloshooda iyo maalkooda waa xaq Axmed Rashiid barnaamijyada lagu mutaqana target gareysanayo waa arrin ka baxsan dowladda Kenya iyo Kenya gudaheeda horta dowladda Kenya soo hogaato shacabka Kenya soo hogaadaan Soomaalidu ay mutaqana YouTube kala dhex fadhido ciidow مدي عرضها قرنيسة صدق صنو ومطها بعضي وقحضي ومحبة كبراني إنه حصان مرين وقبيل دين كدكتي دين تودا يعقيدو تودا يدقن كودا يريضودا يعلم كودا وقبيل حبر بهالله نم بهالله ويل بهالله فنان بهالله قبر بهالله تستي وحوي أدوك أنا بناعي أنا بس معها مركا مركا سكولة أنا متكل عاو هالبان ماشي كيف هي السنة ورنيه هو فيري هلا كلا صاروا وقد الصومالي جاه sida luqadaha Ingiriiska Australia iyo Mareykanka iyo Canada hal luqad uga dhaxayso laakiin ummad kala gedisan u yihiin sida ka Swahiliga ummad badan uga hadasho laakiin ummad kala gedisan u yihiin sida luqada Xabashiga ama Xamaariga ummad badan uga hadasho laakiin qowmiyada kala yihiin sida luqada Faransiiska ummad badan uga hadasho laakiin luqada ummad kala yihiin luqada Soomaaliga laga dhigo Soomaaliga waa lagu hadlaa dadku shaqo isku malaha dadku nooca isku dhaqan ah ma aha dadku walaal marka Soomaali ma wada leeyahay أرتاس برامج على الصعب سومالي بالودلية نو أنا كسر جدا ما عن سومالي 6 سنة وني بقول سنة وني كنت سنة وني إن عبد الحسن بقى ودقالمي هذا عبد الحسن وايد سومالي سيحوري أحمد بري ودقالمي ومد بدن بقى دقالمتي عاوم حكينا ما مركز سومالي لما رحت أرديس أرت أنا هذا صار هلا كلا بحر أنا إحنا مثلا هاي وقدنا أنا قاعد أحسه على نجمة حيو كل نجمة حيو أرتنا نجمة حيسو أرتاس فين ولا okay waa mahadsantahay walaal su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo waxa weeyaan su'aashaan rabaa inaan ku weydiiyo waxyaabaha ugu badan waxa weeyaan dadkeenu marka wax dhacaan inay qabiil wixii dabada u geliyaan oo qabiil ku riixaan shakhsigan qabiilka kugu riixaya ee reer hebel baa waxa sameeyayna isaga qofka ugu xun ee ugu qabiilka badan yahay ugu qabyaalad xun yahay seed aragtaa taa aad baa mahadsantahay su'aal fiican waxa taa ku sheegay waxa weeye dadkan Soomaalida la yiraahdo horta diin iyo dhaqan iyo iimaan iyo caqiido qabiil baa u ah
halkaa ku taallo horta waxbaa ka dhegeysanay midda kale su-aal baan ku weydiinaya dad badan waxaan arkayaa ogaadeen baan laayay ogaadeen baan la dilay ogaadeen baan ku haya war beesha ogaadeen anu nin qabiil ma ihi waad garanaysaa taariikhdana way qortay 30 sana Ethiopia mataqaana ay jamhadda tibal fal dagaalamayeen waa la xasuuqayay waa la tooganayay waa la soo dhiibayay waa la gadanayay youtubero ama journalistiyaal ama wariyayaal Soomaalida kala ah oo ka dhidhiyay maaragtay oo ka hadlay maaragtay oo ka qiiranaya maaragtay أنا waxaan garan waayay sababta marka Soomaalida kale ama shakhsi wax gaaraan ama qof dhalinyaro isdisho ama isfeedho dadku asxagtaa talba 150 youtuber iyo 150 facebook iyo 150 hobol oo maxay tahay adina ugu ooyin 30 sano lagu dhibaateynay lagu xariyo lagu dilay ooyido ani marna anu qof ma baahnaanayo ani markaan ku leeyahay ani galbeed ka soo jeeda qabiil waa wax jira qabyaalada xun qabyaalada xun qabiilku waa wax jira ma jiro qof iga qabyaalad yar oo iga wadaninimo jecel wax kasta oo wanaagsan aynu inaan ahay inay dadkaygu yihiin in amxaar aan la dagaalamayo marka iyagu cid isu leynayeen Soomaaliya ay reer iyo qabiil iyo magaalo isu leynayeen anigu axmaar baan xabad la dhacay axmaar baan dilay marka waxa kaliya meesha ugu muhiimsan waxa weeyaan aniga culays ba igu hayso qofkan ireebin ma rabo qofkan ani hadalkood qofkan waxaan u daba joogaa ma jiro inaad rabaan ku xasuusin adaa waxaan ku xasuusinaya fiiri Soomaaliya oo dan weyn dad badan Soomaaliya degan adiga oo Soomaali ah oo ama Jubaland degan ama mataqaana dhul kale Soomaaliya degan lama wadan baa tahay dadka Soomaalida la mid tahay waxa lagu oranayaa haddaad hadasho Ethiopian baa tahay Kenyaati baa tahay fiiriya dhanka kale waxa lagu leeyahay Soomaali baa tahay kolbolen ciidano yes halka ay qabo qofkan kule Ethiopian baa tahay iyo Kenyan baa tahay maka aha Ethiopian nacayb iyo Kenyan nacayb aduuse ku nicib yahay fiiri iyaga ma nacba Ethiopia ma nacba an Kenya ma nacba but he hate you adu hadda kaaga horeeya Kenya isaga kaaga horeeya that means adiga nacayb una kuwa una nacbayn buu kugu riixayaa nacayb adigu ku nicib yahay I know that waan ogahay aniga hadda la janqaad waayo fiiriya waxa lagu oranayaa Kenyaati baa tahay Ethiopian baa tahay laakiin Addis Ababa waa laga horeeyni Nairobi laga horeeyaa rabaa haddana waxa la rabaa inaad Nairobi mataqaana la dagaalanto Addis Ababa la dagaalanto adoo magacaadi la wato marka arrinta waa fahanay generationkeenu waa fahanay odayaasheenii iyo abayaashii mataa ku jabay laakiin aniga iyo adiga no waa fahanay generationkeenu waxaan bareynaa waan tilmaamaynaa Soomaalina wax la yiraahdo 30 sano kahor bay la aasay oo dhimatay mar haddii Soomaalina ma jirin iyo qadiyad jirin yaan ugu akhrinay wax Soomaalinimo la dhaho aan Soomaaliyeed ma jiro ay Soomaaliyeed ma jirto Soomaalina ma jirto nacasiyow waana soo fahantaa ereygan Soomaalinimo aaw ninkan ayaan la dhaxan aaw ka weynanay oo la hadlay ku ayaan loo inaad Soomaalinimo aan khasbay niga daa way ku Soomaaliyeed jooga xaqaana adoo ka hormari kuwan xaqan joogana Nairobi laga soo maraya adaan lagu afufaya adaan lagu abiya markiina laba nabco Ethiopia laba nabco marka taa isla fahano generationkeena aan barro dhalinyarada naga dambeysana yarkaan aan barro anaga naga yar taa aan tilmaano ina adeer arrintan ku sheego kaaga baxaya ku dheeraaday aniga arrinta youtuberada iyo dagaalka wax kama hadlay laakiin waxa macna ismaynaysa Ahmed Rashid iyo dowladda Kenya iyo security iyo nabadsugudu inay u istaagaan inay muwaadiniinta dalka Kenya ay ilaaliyaan gacan biro ku qabtaan soo jeestaan waliba heegan galaan Allah taageeraya taas nabad oo baahanay shacabkeena wad u baahan yahay thank you walaal waa mahadsantahay la kuma hadlay hay walaal okay ayala walaal ayala mahadsan yahay waxa weeyaan Cabdicasiis soo taago lugta waxa weeyaan marka intan qabyaalada u fahmina hadii lagu heshiin waayo Soomaalinimadii oo qof walba qabiil iyo balaayo loo ordayo ta inaad iskaga tagto oo dhahdo intii dadkan isfahansanay ani waan jeclahay dadkaygu inay mid ahaadaan waan jeclahay inaan noqon qof qabiil oo ololeeya qabiil la naqa ama qabiil aflagaadeeya ama qabiil wax ka sheega laakiin dad is urursanayo qabiil isku urursanayo fartan ku fiiqayna munaafiqad iyo qabyaalad inay wadan garanayna anu waxaan aaminsan waxa jira dad mar walba ku faana ani waxa igala qiimo badan dadkaas iyo waxa iyo diinta iyo waxa reerkanaga ciidanada yani qofkaas waa qof zero jooga zero taagan yahay balse qof walba halku ku joogo waa inaad u istaagtaa qof walba okay qof markuu soo qabay leeyahay waa inuu soo ifeyd garaya kamerada haddii kale ay kaan
hal daqiiqo inaan isiiyo mooyaane waqtigu iska yaryahay marka halkaaga daqiiqo ka faa'iidayso arrintaa wiilka si aad aragto soo dhow walaal assalaamu calaykum luuqa ka soo bax wacalaykum salaam soo dhow iga raalli ahowniyo waxaan ku jiraa waqti dambe hay ku soco waxaan rabaa arrintaas baan rabaa inaan wax yar ku darsado okay haye walaal ka soco inaan horta marka koowaad aan su'aal isweydiino ninkaan hadda hadlayay oo muxuu ahayto anigu ma kala aqaan dhulka horta laakiin hal su'aal haddaan ku weydiiyo meesha la yidhahdo Kenya reerka la yidhahdo Soomaali ma ogaadeen kaliya ka degan may dadka deegaanka sheegaya may okay waxaan u laabanayaa marka arrimaha aad ka hadlayseen eed badan oo Soomaalida aad saarayseen mar aad lahayd waxa la dhiibay rag ogaadeena la dhiibay xagga laga dhiibay cid ka hadashay ma jirin goorma hadda yarkii hadlayay macnaha nimankii waxaan sheegayaa ahaa oo aan lafta oo la dhiibay Soomaaliya laga dhiibay waan ognahay in la dhiibay laakiin hadda yaa yiri macnaha idin mas'uulka macnaha yarkii hadda hadlayay opinion ka hadal wiil qof hadlay hadday noqoto in laga daba hadlo dadkii isku jawaabaan bay noqonayaan marka ما waxaan rabaa ma aha wiilkan kaliya kama hadlayo macnaha sheekada maalmaha socotay waa wax jira oo run hadii la isweydiiyo rag badan oo aan la faaldhiibay Hargeysa laga dhiibay Garowe laga dhiibay gobolada la xal laga dhiibay Muqdisho laga dhiibay horta meediyuhu maalin beheer buu marayay social media ma jirin iyo idaacadaha freega hadda laakiin Soomaali raalli kama ahayn nin oo alaaf oo jamhada inta la qabto oo jeegada la qabto inta kale loo dhiibo ama xaalad loo dhiibo qof Soomaali oo raalli ka ah ma jirin nin ii kaadi walaal hal daqiiqaan kugu darayaa u soo laabo toobigan ka hadlayna ka habeen kalaan ka hadlaynaa hadda waxaan ka hadlaynaa qaatada meesha ka dhacday walaal iyo arrintu soo dhacday haddii aad rabtid qof ka hadlayay in aad meel kale ka soo maqasho oo laga hadlayna waa meesheeda laakiin hadda ma ka hadlaya waxaan rabaa inay iskaga keen dhaxdaanin toobiyadu haddaa u baahan tihiin habeen kalaan kaa soo qaadanay laakiin wiilkan iyo dhibaatada ku dhacday iyo wuxuu isagu sameynayay iyo dadka la ogaadeen ba hadda tusaale ahaan wuxuu yiri ogaadeen ba ay dilay wiilal ogaadeen way garanayay ay dilay inay been tahay aan aniga qaaday sababtoo ah ninkan ciidan baa dilay ciidan buu afka uga galay isaga rabin inuu dhibaato sameeyo taada kale waa la iswada garanaya war hebel oo garanaysaan ba ay dilay muddo weligii alihi Nairobi meel dhan ma dhaafin marka su'aashan isweydiinayna waa taas walaa topic gaar inaan ka hadalno waa kaas laakiin topic kale ma ka hadlayno anu mid social media iyo waxaan ciyaalkan inta la isqab qabsaday waxaan ka dhashay dagaalkan social media ka dhashay oo hadda taagan kama hadlay laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta Nairobi Kenya meesha la yiraahdo okay ogaadeen reerka la yiraahdo reer Soomaaliya wuxuuna ka mid yahay saddexdaas gobol oo Soomaalidu ku leedahay gobolka waqooyi bari beelaha degan oo Soomaaliyeed buu ka mid yahay go ahead waxaan rabaa marka ninkan odayga ah oo la yiraahdo Axmed Rashiid oo hadda maalmaha laga hadlayay oo security-ga ah oo wiilasha meesha laamiga ku dilay sida la sheegay wiilashaas waxa la yiraahdaa maxaa magacii super power anigu runta markii gaangiisu bay ahaan ku soco anigu markii runta loo hadlo ama gaangiisa ahaado ama tuug ha ahaado ama ha ahaado qof kale oo la qabtay ha ahaado qofka la qabanayo nooca loo dilayo runtii aad baan uga xumaaday anigu ka shaqsi ahaan waayo qofka tuugga ah ama gaangiska ay xaq wuxuu u leeyahay isaga laftiisu inuu cadaalad helo oo intaad u timaado inaad madaxa ka toogato qof bini'aadan dhibkeeda ay leedahay laakiin markaan u soo laabto qof Soomaaliya waxaan ognahay Soomaalideena qabiil bay isku wada haysataa gabigoodba asagoo qof waxba samayn baa xumaan loo sameynaya loo abuuraya kuwa kale oo qabiil ahaan u colaadinaya wax kale ku abuuraya ku sameynaya anigu waxaan jeclaan lahaa marka maanta ilaa xalay waxa aad looga hadlayay social media ninka odayga laga hadlayay aragtida aan ka qabaan marka rabaa inaan ka hadlo anigu ninka isaga waxaan rabaa ninka isaga ay hadduu security yahay oo dawladdu ay dawladdu u shaqeeyahay ummadda Soomaaliyeed meesha joogtaa security wax loo baahan yahay laakiin qofkii inuu cadaalad helo oo qofka uu soo qabanayo qof cadaalad geeyay uu noqdo oo Soomaalidu ay isku fiirsan iyo dhaxdooda inay isku toogtaan meesha la yiraahdo isli bartankeeda midda kale haddii qof Soomaaliya power la siiyo la yiraahdo Soomaalida adaa wakiilka
waxaan ognahay iyaga dhan qabiil baa ka wada dhexeeyo waxbay isku wada haystaan waxaan oran karaa wuxuu ka faa'iideysan karaa kuwa kale oo isnacab yihiin marka waa in loo sameeyaa halka ay qaba marka halka ay qaba yar baan ku sheegayaa tobanaan boqolaal ku dhawaad buu dilay ninkani ayaa farxiyo waan soo qabanaa boqolaal buu dilay ninkani aad adigu indha ku garaadla oodan aqli ku garaadla ahayn that's problem yourself waa dhibaato naftaada mar walba waxaa loo baahan yahay inaad aqli ku garaadla noqoto talaabo ninkani qaaday suuqa bartankiisu lama nin intuu isku taagay uu ku toogtay okay waxaa jira gang badan waxba dhoolatus baa la siinayay raga meel baa la geeyaa xabsi baa la geeyaa qaar baa ordo uu toogtaa gangiiskuna adigu meesha joogto iyo Kenya iyo anigu magaala wadankan aan joogo isku soo uga shaqeeya gangiiska meel kasto lagu arko waa la xabadeeyaa waayo they have gun mashruuc wadanka u yaalba fiiri mashruuc wadanka u yaalba insa loo dhaqo wadankeed adigu joogta hada anu waxaan joogaa Yurub baan joogaa okay wadan Yurub ah oo gangiiska lagu tooganin xageed ku aragtay marka la indhaha la saaray gangiiska waa la toogtaa waa la shuud gareeyaa sharciga Yurub ma maqlaysaa ya sharciga Yurub waxa way qofku haduu qoray haysto no nimanka booliska fiiri dadka booliska haduu isaga waxaan ka hadlayay fahan gangiis totally magacan gangiis waa dad hubaysan weeyaan gan babal magaca akhri gan marka waa dad hubaysan wuxuu haduu gangiis yahay boolisku uu shuud garanaya waayo they have qori bay haystaan baan marka hore hub bay haystaan marka gangiis meeshii lagu arko in la shuud garayo sharci walba oo caalamka hidhigaya marka nimankan sababta loogu dhex toogtay suuqa inay kuwa kale ku qoos qaataan ama kuwa soo socda ku qoos qaataan baa in aqli ku garaadla noqoto fikirtay ahay niman marka intaasan kaaga gudbaya haddii uu leedahay marka cid buu ka aargoosanaya oo power haddii la sii cid buu ka aargoosanayaana ya saaxiib adiga haddii wixii aad Soomaaliya lagu soo khiribay iyo dhibaatadii aargoosiga uu jiro meeshan ma ka jiro ninkan waa nin meesha ku burbaaray waa nin xaq u leh waa nin sargaal ah waa nin waxa ku meelo ka hawlgala kale iyo magaalooyin kale ka hawlgala wali soo qora gobolku ka hawlgalo waa loo yeeraa waa la codsadaa noo imo baa la dhahaa Nairobi baa la keenaa marka walaal wixii wadankeena soo rogay ee argoos iyo waxa horta fiiri aan mid kugu laabto horta markaan leedahay wadankeena markaan ka hadlayno inaan wax kasta dusha ka saaro niraano wixii wadankeena saas yeelay wadankeena maamul iyo system jiray ayaa sida yeelay waa wadan burburay fiiri Nairobi meesha la yiraahdo Nairobi ummadii Soomaaliyeed waa ku soo jabtay liida kuma noqon dad liida kuma noqon hanti way ku abuureen shaqay ku abuureen ganacsi bay ku abuureen nin gaanga oo qorisito oo wax dilaya oo ninka askariga naftiisa tooganaya illa dilo talaan waxba kama qabo laakiin qofka inta fiiri qofka inta la qabto isagoo gaangisa markaad qabatid oo gacanta ku dhigtid qoorta inta iska taagtid inaad madaxa ku dhifatid taasaan waxaan arkaa inay sharci darro tahay ayuu haato ama Afrika haato okay wax sabab baa jira waxaa jira sabab baan ku dhahay sabab haddii hadalka rabtiin aan kugu celiyana marka waxaan rabaa markaan Soomaali ka hadlayno Soomaali ha ka dhigin isugalaale Soomaali waxaa tiri wax walba inaan soo qaadano ma aha muhiimadu waxa weyn aad dhahdo waxaad sheegayso waa inagii waxa isla hadlayna cadow uma warramayo dadka uma sheegaya waxa aan sheegaya hadduu been yahay waa been baad dhahaysaa gangiiska waxa dadka u adeegsada waa ganacsatada adiga in yar la tagaya ganacsatadii iyo wixii wadankeena soo khiribay iyo kuwii oo soo orday ayaa nin gangiiska wax siinayaan soo dilbay dhahayaan wax isku adeegsanaya gangiiska iyo waxan waa Soomaalidii welibana waxa la dilay ganacsatada yar yar iyo hooyooyinka masaakiinta ay ahaayeen marka walaal waxaan kugu soo gabagabeynaya waqti dheer baan ku siiyay ninkani dhoolatus buu sameeyay markuu rag ku dilayay kan iyo Yurub ayaa ku waayay oo xuquuqda aadanaha ayaa ku waayay wax dambi ah you know هل ميدا كلية ما كان أنا ما صرت هل ميدا كلية على سوق قبل هاي هل ميدا كلية كي يودن علينا معها Soomaali waxa uu gobol ka mid ah Soomaali ka mid tahay Kenya oo jooga laakiin Soomaali soo jabtay tiri ama Soomaali soo jabtaado ama kuwii deganaa ha ahaadeen Soomaali magacna way ka sameysay ganacsiga way ku sameysteen hantina way ku abuureen waxa dhexdooda inay iska qabtaan oo gaangi haduu yahay in la qabto ya sharciga ma dhigaya taa marka dadka Soomaaliyeed oo aan ka dhigayn inay baaba yihiin ha ka dhigin Kenya iyo dan ku qabto Soomaali
ama kuwii hore degan ahaadeen ama kuwii yimid ahaadeen listen idhageyso haddii ayna baaba ahayn oo dad dhintay oo nolosha ka dhacay oo munaafiqiin iyo waddankoodii soo ragay ahayn waddankoodii intan u jira waddan kale maxay u dhisteen adiga hadalkaaga waxaan kaaga jawaabayaa dad chance badan baan ku siiyey walaale insha allah dadka kalaan siin isna chance xaq bay leeyihiin I don't want more inaan walaal ma kuu jeedo gabadhii uu ilaah cabdicasiis soo qabo farxiyo ma kuu jeeda raali noqda insha allah inoo geeska u sii taabta waad sii sheer garayn kartaan injineer axmed walaal waad soo taamaad kaamerada maadan soo codsanin halkiina daqiiqa idin siinaya ha igu dheeraanina okay ya ha igu dheeraanina inoona sheer gareeya haddaad awoodo weeyaan qasab ma aha only if you can soo qabsa walaal dad badan baa ku jira meeshu way buuxdaa markaa soo qabso insha allah midnimo qaran walaal waan ku soo qaban adigana please isku day markaan kusoo invite gareeyo inaad durba soo qabsato okay soo kala horreysayna in soo qabta mooyaane I don't know waxaan sameeyo waayo meesha waad iska soo gelaysaan waad soo buuxdaan meeshu waad ku jirtaan haddana waayo haddii aadan soo qabsanaynin ha soo gelin meesha oh my god waa mahadsantiin insha allah waxaan u malaynayaa qof oo umaryare okay haye markaan kusoo invite gareeyo durba waqtiga ha dilina dee kusoo boo durba haye waan kusoo qabtay war farxaana waan ku salaamaya line automatic baan uga tuurayaa qofka intuu meesha 1 minute kula السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaal waad igu ciyaartay waan ku soo qabanayaa isoo رالله ما مقشاده ku soco بسم الله لما أرين باربارت نيكا أرين تودهينا كده أرين أحمد رشيد أدو صنع نغنيس هرت الصومالي ده مدينة وقته واي نيكا ومرة ولا على فكر كاجا وحاول كهجد بتجين أوكي ما يبغى ربا أوكي رالله هو فكر كين رانا كديبتو أنا كل وحنا أركان نيكا أدو صوت أدو دلي نصومالي وأسكري بريبا نيكا لو مذو بديل لها تذكر أحمد رشيد وعقول قلا مضارع حافظ الله إسلامسكا وعقول قلا إلا يكيولي حافظة أوه مذو جوان أنتوا مذو دلي لما أركينين هل إنه صومالي ودلي because أصلاً ما دام وياهي جروب ليدا وليدا وياهي وحول بودع أصلاً برضو دوش الله صاريا تذكر ركب على الشقية ومذو وحالة هذا يعني اللي دلي توجا markii odayaasha masaajidka ayuu joogaa ma galay telefoonada ka qaadanayeen tooriyada dabada ka gelinayeen lagama hadlayn marka waxay tahay arinta meesha taala waxay tahay ma waxa loo raadsanayaa qabiil ahaan ba target loo saaraya mise waa askari qaldamay okay haduu yahay askari qaldamay aniga waxaan qabaa ninka maxkamad baa la geeyay oo qolada human rights ay geysay dambi waa lagu waayay maanta akhrinay waa lagu waayay oo soo noqday boqol askar baa magaranaysaa sharci darro intay qof ku dileen shaqada laga qaaday maxaa asaga reebay maxaa ka duway tan kale ninka hadda kasii baxay hal jawaab baa rabaa adoo raalli ah wuxuu dhahay Soomaalidu wadanka ma laha wuxuuna lahaa gobolka ay degaan waxba inaad ka Soomaali Kenya okay raallo gobolka waa saa melihin adigu qof yuna noqonin inaad isagii hadalkiisa ka daba degayso adigu inaan gobolka aan leenahay ama aan wadanka leenahay ka hadal laakiin ha u noqon waa okay all right okay wadanka Soomaalidu wax bay ku leedahay xaq bay ku leedahay haddii xaq ku lahayn meesha joogi lahayn maadaama aad baarlamaanka ku jirto civil servants ku jirto xaq baad u leedahay wadanka waadna ku leedahay waxaan dhihi lahaa marka hal baan dhihi lahaa Soomaalida hal kaliya waxaan isku fiirsanayno waxaana soo dulaysta waaye qofka tuuga haduu yahay waa tuug midda kale dadkan la dilay wax uu asaga kaligiis sharci u maaha tuugada Kenya tayr inta la galiyo lagu gubaa shacabka markay qabtaan
وارن nin marka toori wato waa nin qori wato is armed qofka dum waxa way harmful way qof ma garanaysaa wax geysan kara way Kenya iska dhaaf qori qofku waxa lagu dilaa toygan in la dilu qabto qofku waa lagu dilaa meeshii la jiifiyo yaa qorigiisa la dul saaraa marka waxaan dhihi lahaa anigoo soo gaabinayo Soomaalidu waxaan dhihi lahaa loo jeesto cadowga ee tuuka ah ee targetkan kale la iska daayo aad ma santaa ma ana runtan sheegayna adigu waxa targetso cidaad ku xoog weyntiin iyo kuwii qabiil isku urursan oo idinka idin jirtaa cidna xariisa u gelina laakiin anigu runtan idin sheegay horta Axmed Rashiid waa sargaal habaar iyo duco midna uma baahna qof wadankiisa soo dhibaateeyo raba dhib kale inuu geystana qofna ma weydiinayo madaxu ka tooga marka hadda adigu leedahay عدين dad badan ah hebel buu daahir cali soo samee daahir cali soo ana waxa ma arag daahir laban rag baa is haya adiga laftirkaagu rag is haya inaad dhexdhexaad ka noqoto ama xaliso mooyaan haddii aad naqamlayn iyo baqbaq aad la timaado qof ordayso inay isagana rag la saftaan maxaad ku diidi gabadhu ilaha soo qabo okay warayaa Cabdicasiis oo ma arkaniyo gabadhii aad soo qabay ilahay okay dadkii soo qabay hoosta ka leeyahay hal qof oo meesha joogana ma jiro dadka soo qabale kaamirada soo gala marka rabtaa inaan soo qabto soo ifeed gareey kaamirada soo gelina meesha please kun qila walaal ma joogtin meesha qof meel iftiin taga qof kaamirada soo qabsada in rabin in la soo qabto please ka bax kaamirada soo gelin daga adkidina madaxaan idin kaga qayliyana haddana rabin in lagu soo qabto kaamirada soo gelin ha soo requestiga ha soo dirin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hadda waad soo qarnaysan waji dumar baa waa sidaaniyo meeg aabati bal soo dhawo walaal ku soo raali noqo waa kaftan taasne ما هو دملا وكفتك وبنان horta niyo nabigiina ku saleeyo niyo ummad Soomaaliyeed anahay qabiil haduu faa'iido leeyahay mise qof qabiil lagu ugaarsanayo 30 sano qabiil ku soo jirnay ani su'aal kaliya qaba waxay tahay horta niyo ninkan waa nin shaqo fiican soo qabtay oo shaka kuma jiro oo Soomaalidii Kenya joogtay alxamdulillah way ku nasteen laakiin arinkan haday jirto niyo qabiilka laga fogaado qofka waa shakhsi haddii ay wax cadeyn aan lagu haynin wax cadeyn hadaysan jirin walaalkaas khadka ku dhigay wardadku way badan yihiin bismillahir rahmanir rahim haddaan ku arkaa walaal waa ordaysa caawan dhan haddana ninkii Cabdicasiis ana soo qabadan biyahay soo dhawo walaal هلو السلام عليكم السلام دمانتين ka qaadnay wajiguna ku qarsoonaada leerka isku shilin saa ku soco ما يعيد وجهك wax micnaa ma sameeynaayo kulli gidaarkan lagu sharaxa ma muhiimada laga hadlaa waa dood meesha tan ana kula abaayo in wajiga soo muuqdo ma sidana sax aan ku yiri maad madaxda qalad fahanti ku soco thank you marka waxaan arkay dad badan oo qiiro jabaan wado maxaa lahaay hadalka meel laga rabin maanta dhan ka raadinaa dadka Soomaaliyeed waxa dishay qabyaalad niman waxa arkay waaweyn iyo islaam kastuumooyinka miidiyaha ku tuurtay waashay qabiil ku waashay haddana dadka ku ceersana qabiil Axmed Rashiid wuxuu yahay waa naqaan isxaafada islii wuxuu ka qabtana waa ognahay Soomaali ay khalsan tahay malahan ama ha joogo ama ha maqnaado geesi Soomaaliyeed waan ilaahay u soo diray dadkaas ku nool isxaafada islii oo cadawga madowga ahaa iyo ilmihiin yaraay darawadu dilay ka qabtay ee gacanta ku qabtay ayad oo laga fidiyo iyo maxaa dad qabiil qaaday qaaqliyaal oo miidiyaha joogo heerabaan sameeyaan yani waxa ka qaadmay anaka afdheer anaka joogna anaka ay asdheena anaka dhehna sorry anaka dhehna thank you wuxuu qabtay codkaaga yar googo ayaa wala farxiya
معدك جوجا هذا عادي وي اوكي جو هيد اوكي ترى ان كهلا محل waxay dheen daahir calasow cabdishuud ku shaqeysto daahir calasow waa saana daahir calasow waxa u ceesanaysiin waa qabiil gun yahay kun dhashay wasaqda midgaanti iyo wasaqdi iyo jarjarkii oo dhan inta soo baystay wuxuu ku waashay daahir calasow cabdirashiid ogaadeen habargir fuck you ana ogaadeen ana habargirnaa oo ka rooyidin wasaq وانا انقطعنا هنا واجبنا والله ولا لا هاي قبل عيد وهاي قبل ماشي لا اسمها قبطو هدي لايف لا soo galo kulli qof walba afkiisu wuxuu soo qabto leeyahay xaqiiqda ka hadla hadaa ima qashid codkayga ma maqashaa yar gogo ayaa is okay laakiin codka ha oo meewada ka baxdayba war waa mahadsantihiin muhiimadda aan u soo galay ani waxay ahayd keliya inaan idin fahansiiyo uun arrintu see u dhacday waan idin sheegay dadweynahana waynu aragnay qofkii qof rabow dee shaksiyadaada iyo yacni meeshaada walaalo ku ataag iskaga celi anigu laakiin xaqiiqadan soo gudbay qof haddaan anigu aan jeclahay ama aan koox taageersanahay dee adigu ma aha inaad igu qasabto wax kale hadda waxaa ciyaaraya faransiiska iyo burtuqaal alxamdulilah rabbilcaalamiin faransiiska iyo burtuqaal baa ciyaaraya waddan baan taageersanaa marka adigu waxa aad taageeraysa taageer cidda taageeraysa taageer adiga hal lagu taageero waxa rabto samee waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan inaad noqoto qof runta ku taagan xaqiiqada sheegay qabyaalad marna guul ku gaari maysid waxa dooni la orod ummaduna way kugu nici qabyaalad marna dib ku gaari maysid shakhsi walbana heerku ku taagan yahay istaag waxaan idinkaga tegayaa mar walba anigu meesha runtaan idinku sheegi mar walba xanuunkii dooni hal ahaatay runtaan idinku sheegi meesha qof intuu qofku been igu jeclaan lahaa run ha igu jeclaado waa mahadsantihiin allah ha idin sharfo insha allah waxaan rajeynayaa barnaamijkan inaad meelo fog gaadhsiin doontaan waa mahadsan